بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay taariikhda hijrigu tahay sagaalkii dilqacda 1441 oo ku beegan 30kii bishii 6aad 2020 waxaan dib u bilaabaynaa barnaamijkii silsilatul huda wan nuur ee horaan isaga kaashan jireen daarul xadiis iyo dacwa tawxiid oo haka dhaqdhaqaaqeedii dacwo hadda u galay ayaan insha allahu tacaala dib u bilaabi doonaa. waxaa xusid mudan daaru xadiis waa hoyga aad ka heli kartaan duruusta sheekha oo dhan, khaasatan wixii luuqadda soomaaliga ku turjuman, muxaadaro iyo kutubba, qeybteeda website-ka, facebooka, youtube-keeda iyo telegramkaba. wixii duruusay hore kuu dhaafay halkaa iyadaa insha allahu tacaala dib ugu noqda. marka mashruuca oo silsilatul huda wan nuur ayaan insha allahu tacaala maantaan dib u bilaabi doonaay. xalqadeedii koowaad ayaanan maanta qaban doonaa ilaahay idankiisa. sheekh xasan walaalo badan iyo dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo meelo kala duwan joogayay ayaa in badan oo ka mid ihii ayaad ku soo wada salaamayaan, qeybo ka midana ay raacinayaan sheekh ilaahay dartii baanu jecelnahay ee hana laga gaadhsiiyay. marka koowaad sheekh kusoo dhawow si salaamaha aada u radiday. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka koobaad aad baan idinka mahadnaqayaa dadaalka aada wadaan ee ku aadan faafinta dhambaalka diineed. marka xiga walaalaha isoo salaamay waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum wacalayna wacalaa cibaadillahi الصaalixiin. intana jecel ilaaha jeclaado, intaanu jeclayna allaha soo hadiyeeyo, diinkana allaha ku toosiyo. dhammaan waxaan jeclahay dadka muslimiinta inay khayrka isku kaashadaan, diinkana isku kaalmaystaan, walaalo ilaahayna ahaadaan. allah idin barakeeyo. barnaamijkana waa ku dhowahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. sheekhana beejka oo su-aalaha lagu iclaamiyey daaru xadiis waxaa ku yimid su-aal aada iyo aada u badan. midda labaad, su-aalo badan ayaa ku yimid. maanta keliya inuu sheekhu ka jawaabay kama gaari doono. ayadana insha allahu tacaala waxaanu inaga codsanaynaa inaad noo kaadisaan ood naga sugtaan intaan kasoo gudbin doonaa. maxaa yeelay waxaa nala qumanaatay inaan tartiibka ay su-aalaha beejka ugu imaadeen su-aalba su-aashasay uga soo horeysay aan ku soconay. waxaa kaloo xusid mudan su-aalo badan ayaa macnahooda mugdi badan u galay. kuwa iyagaana insha allahu tacaala weebka ama daaru xadiis maamulkeeda insha allahu tacaala ninkii su-aashiisa meesha ka waayay dib ha ula xidhiidho. sheekhana asaa'ilka koobaad ama su-aasha ugu horeysa su-aasha koobaad waxay leedahay, sheekh waxaan ku weydiiyey dadka qaar ayaa marka ay sadaqo la baxayaan waxay dhahaan ha la ii duceeyo ama ha la igu duceeyo qof hebel. dadka noocaasa sadaqadaas ajri miyay ka helayaan mise ducadii ayay ku iibsadeen? bismillaah. su-aasha jawaabteedu waxaa weeye, haddii ruuxu marka hore uu ilaahay dartii wax ola baxay oo niyadiisu ay ahayd aada sadaqaysatid lacagtaan hantidan ilaahay dartii inuu u bixiyo uu niyada ku hayay, kadibna niyadaa markuu niyeystay kadib haddana uu yidhahda raacsatid in lagugu duceeyo ruuxa dhiban ama kaa xanuunsan ama muraadkaad leedahay, dhib ma laha. ajirna waa ka helayaa, sadaqadiisa waa u jirtaa, ajirna waa ka helayaa, in loo duceeyana waa mudan yahay. laakiin hadduu qasadku ahaa marka horeba sadaqada aad u bixisid
ha lagu duceeyo ruuxi xanuunsanaa ama adiga ha lagu duceeyo ay ahayd marka wuxuu niyado in buu leeyahay ajir ka heli maayo asalku waa sida aayadii xajka ku saabsanayd bay culimadu u daliishadaan qadiyada ayada walaysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum marka haddii asalku marka hore buu ahaa ilaahay dartii aad u xajidid ood waajibka aad gudatid dana kale oon diinka ka hor imanaynin ee dhibna aan lahayn waa la raacsan karaa kadalika aljihaad baa lamida marka hore ilaahay dartii aad u jihaadid adoo ah haddana haniimadii niyada waad ku qaban kartaa howlo kale masaalix kale dana kale niyada waa la raacin karaa laakiin niyada asalka ay asaasiga marka hore waa inay noqoto ilaahay dartii wixii kalena ay tawaabic noqdaan tawaabicda marka asalka hore aan dumanaynin dhib ma laha gabagabo waxaa weeye ruuxaasi hadduu sadaqada ilaahay dartii oo la baxay danta yarna uu raacsaday ajirkiisa waa leeyahay ducana muusan gadanin ilaahay dartii buu wax u baxshay haddii laakiin qasad ku ahaa lagu duceeyo keliya marka iyada ah wuxuu niyado inbuu leeyahay wabilaahi towfiiq jazaak allahu khayr aljazaa sheekhana su-aasha labaad waxay leedahay sheekh qofka markii la dhaarinayo ma ku filan tahay inuu yidhaahdo waan dhaaranayaa oo uusan kitaabka gacanta saarin mise waxaa waajiba inuu kitaabka gacanta saaro bismi illaah jawaabtu waxaa weeye masxafka in lagu dhaarto shardi ma aha waajibna ma aha waa min almustaxsana cinda bacdi ahlicilm maadaama qur-aanku ilaahay kalaamkiisi yahay dhaartuna sifaadka alla lagu dhaartay asmaadiisa daatiga ah sifaadkiisa daatiga ah lagu dhaarto saasaa bacdu ahlicilm min asalaf kashaafici wagayrihi ay u fatwoodeen ta'kiidan wa tacdiima lilxalifi walqasami ay u raaciyeen kitaabka qur-aanka soomaaliya dhaqan u noqday ruuxii la dhaarinayaba in loo kala furo kitaabka loo kala qabto gacanta saar la yidhaahdo ilaahay magaciisa wey inaad ku dhaarato iyo sifaadkiisa kugu filan soomaali way taqaanaa xataa inaad tirahdo wallaahi baa kugu filan bilaahi tallaahi kugu filan dhaartu waajibka waa inahaas laakiin kitaabku waa lagu xoojiyaa asagana waa lagu weyneynayaa ruuxa dhaaranayana waa lagu cabsiinayaa maslaxadaasaa ku jirta marka laakiin waajibna ma aha shardina ma aha xataa sunna ma aha waa shay iska bannaan oo laga tegi karo qaadiga markaa fadhiya ee wax dhaarinaya yaa go-aanka qaadanaya hadduu u arko in uu ku xoojiyo wuu samaynaya hadduusan u arkna waa iska daynayaa marka jawaabtu sidaa waa iyadoo kooban wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekhana su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani anigoo musaafira ayaan dib u dhigay salaadii duhur casarkii ayaan soo gaadhay deegaankaygii sideen u tukanayaa salaadii duhur miyaan qasrinayaa mise waan dhammaystirayaa bismi illaah jawaabtu waxaa weeye sida roon waa inuu dhammaystiro haddii duhurkii iyo casarkii uu dib u dhigay jamca taakhiir wixii la odhan jiray kadibna asagoon midna tukan uu gurigiisi tago iyo beledkiisii inuu dhammaystiraa wanaagsan waa masale khilaafiya fuqaadu isku maandhaafeen waxayna u laabanaysaa qaacidadii aad taqaanina ahayd ma waqtul wujuubkaa la eegayaa mise cinda alficli baa la firinayaa waajibka xilliga la gudanaya waxaad ku sugantahay miyaa la eegayaa mise xilligii dimadaada uu waajibku qabtay baa la eegayaa haddii la eego xilligii dimadaada uu waajibka qabtay duhur wuxuu ku soo qabtay adoo musaafir ah casarna hadda wuxuu ku hayaa adoo muqiima musaafir ahay marka haddii kaa la eego waa la kala qaybinoo casarna waa la dhammaystiri duhurna asagoo gaaban baa la tukanaya haddii la milicsado waqtulficli cinda aladaana waxaa weeye oo hadda gurigaadi baa timid waad nagaatay musaafir ma tihid duhur iyo casarba waxay dhaceen fii waqti aliqaama marka walxadar marka waa la dhammaystiraya khuruuja min alkhilaaf labada salaadoodba ruuxa dhammaystiro afar ha tukado hana jamciyo wallahu aclam jazaak allahu khayr aljazaa su-aasha afraad sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrin maalmahan aan ku wareeray waxaan ku noolahay wadamada reer galbeedka ciiddii fitriga waa la kala ciiday oo khilaaf baa dhacay inta badan maraakiista soomaalidu waxay ciideen maalinkii axadda
ayagoo ku cileeyey in ay sacuudiga ku xidhan yihiin oo aysan shaqo ku lahayn meel kasta oo bisha laga arko. maraakiista soomaalida ana sida aan ognahay ma raadiyaan bil oo waxii sacuudigu sheego ayay ku go-aan. arrintaas diintu maxay ka qabtaa in khalad iyo saxba qofku uu daba taagnaado dowlad gaar ah iyadoo cilada laga dhigayo ikhtilaaful mataalic baa jira. sacuudiga waxaa noogu jaan go-an salaadaha ayaa noogu jaan go-an oo isku madlac ma aha sacuudiga iyo Kenya iyo Soomaaliya. ikhtilaaful mataalic se maxaa loola jeedaa? بسم الله وسؤال دير وشرح قونا أباهن كمرة قاعدو انت اون مهمة كالراعية إن شاء الله تعالى. وحال إلى اختلاف المطالع ووحس كدب بدن وفقهاده اسكم عن رافين ودب بدن وهي اختلاف ودوا كلا دواناشو كلا دواني وهي يلا شيء كلا دوانيهين مطالع دونا وجمع مطلع وحان لو جيدا أما مطلع وحاجر هذا وحال لقوضا مطالع الشمس والقمر. مطالع الشمس والقمر وحي قرح اسكم رؤوسه بحضانه واسكم مطلع وحي كلا دونا وكلا مطلع وحد شيكتبه قمركو يحدو حتى كواكبته والله مد مركا إنها صار لقوضا حق مكا لو سو لابتو صونكا صون إن أركتين لقصه ما أركتين لقو أفروا مسألة إجماعية بين هاي العلم والمسلمين أدلة بدنا وأكتمد دبكو وحو كجرا كليا ما دام المسلمين تايباهين وميلا بدن لك لتشوغو وان لو ودا تشوغين دولة فرابدون كنتون يدورة مسلمين تحتا أي ودما قالت تاقين oo la burburay qaabka loo soomi lahaa soonkooda loo midayn lahaa baa dib badan ka jira. madaahib dhowr marka ilaa 5 lagu soo ururiyo marka la isku celceliyo lagana badin karo ayaa meesha ku jira. sawaabkuna waxa weeye sida roon haday sugnaato meel walba adduunka aad ka joogtid xilifka adduunka iyo dacaladiisa bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi meesha joogtaba jooge hadday sugnaato ay ku sugnaato ku qanacdo maanta inay ramadaan tahay oo aragti dad lagu kalsoon yahay lagu soo sheego inaad soontaa wanaagsan maxaa yeelay waxyaabahan kale waa siyaasad kama marno kala qayban muslimiin kama marno khilaaf fiqi oo dhibadan kama marno adugu marka meel walba ay sugnaato bishi maanta in laga arkay inaad ku soontaa kuuna wanaagsan iyadoo sidaa tahay مسلمين تكره كل دجالمين ومسألة خلافية خلاف سائق باكوتشرة بركيد ومسائل اجتهادية ولي الدقيق أو علوم فهم كران مركب وحنا كوسي حد قد بنا أضوجه لكن سيدا كورهم وحوي أنت مال رمضان وكل لها والمسلمين تقاركود أركان وكسيج لها مالك أيضا الصون مسلمين ترى الراع وحوا مركب رئيس سعودي الرهيب اللي وحاكم مشغولين بريها دمر waxaa soo kordhay waago waxaan moodi jiray dawladaha qaarkood sida Sacuudiga oo kale in waqti ay ku bixiyaan bisha aragtideeda oo ay rooyo aad u raadiyaan laakiin waayahan dambe waxaa qalbiga ku soo kordhaya in sida Turkiga oo kale ayaguna ay falag iyo xisaab iyo manaasil eegideeda ay ku soobaan oo rooyo badan aysan jirin waxyaabaha soo kordhaya hasa aatee saydoon ma noqotee muslimiintu meel walba bisha ka arkaan oo sugnaatina ku soontaa ku wanaagsan iyadoo haddana marka la eego xagga sayniska la fiiriyo cilmi ma aha muslimiinta lagu qaybiyo aragtida cilmi ma aha maxaa yeelay wixii khatu tuul wada dhacay waxayna waan dhihi jiray dhig iyo lool baa la oran jiray khutuutu tuulku waxa weeye waa 360 dhinac dhacda oo شرقي iyo 180 غربي away khatu tool wixii dhaco dhanba waxa weeye waa isku aragti dhanka galbeed wixii ka dhanna waa isku aragti marka dad yar oo muslimiina iskhilaafaya khutuutul ardna iyagu waa 180 bay kala yihiin meesha kuwa duulka ay kala yihiin 180 adduunka dhan de masaafadiisa waxa dhan waa 360 واسك خطوط وهمية وحلو حساب صدق وقليها أي وحكو حساب صدق خط الجرنش إنجليز كان لقوا بيسكريي مع ربنا كمسيح إنه مسلم هذا وحو فهم كرو عامة حكم لو وحو كذا ما هي
waxa wanaagsan maalinkii ay sugnaato ogaato in bishii la arkay aad ku qanacdo ku soo wadaadaha aad sheegteen ee Sacuudiga wax noogu xidhan yidina waa hawl siyaasadeed hawl diineed ma aha wallahu a'lam جزاك الله خير شيخنا سؤال شناد سائل كان وحوليه هي شيخ قوليوين با waxay furteen company qof walba oo qof ku soo daray lacag 350 ayuu ku leeyahay haddii qofka adigu aad ku soo dartay uu qof kale ku soo daro company-gii lacag 150 ayaad ku leedahay markasta oo dadku sii bataana lacagtu way sii badanaysaa marka shareecadu maxay ka qabtaa kambaniyada noocaas bismillah mas'alo dhib badan oo casrigan aad looga murmo warkeeduna batay wax yar oo fahmi karo ruuxa muslimku mar u sheegaya insha Allah ta'ala caamayga waliba kambaniyada aad u fara badan ee kala duwan nooc badan la China ka yimaada Yurub ka yimaada galbeed ka yimaada iyo Mareykanka u jeeda Afrikana hadda aad si ilxad looga socda khulaasadooda waxa weeye laba shardi haday ka badbaadaan qiil baa loo helayaa labada shardi waa laba shardi iyada u gooni ah kambaniyasha u gooni ah wixii ay la wadaageen muamalaadka kale kama hadlayo muamalaadka wixii la wadaageen sheegay inuu san riba ku jirin oo maadada laga shaqeynayo iyo muntajka la suuq geynayo oo san xaraan ahayn iyo shuruudi beec u lahaa iyo dalaal u lahaa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wixii ayaga khuseeya kambaniyashan loo yaqaan taswiiq الشبكة أو الهرمي وحاول شرطي كوبات وإن لو شرطين نروح أقصى بيري حبن كان نقونية الزبون كان نقونية أما عميل كون نقونية كمبني وإن لو شرطين إنه وحي يبسده الاشتراط بالشراء يعني وحي صوص صارين أما الداودي أما وحي يبنيين بي شرطي كاغد إن يبسده كمبني شقار كود سلوغو ديوان قليل إن طي عضوي هدونا وحي آد كنسطو عمول لغوصنا ما بونس لغوصي شرطي اللبات وإن مركا عند الاكتتاب ديوان قلنت عند التسجيل أن واحد فيها لقا قادين وإن واحد العقل لقا قادين هدي العقل لقا قاديو أما الله شرطين أن وحكي إيبسطو كم بني قاسي وحكا شقيني وحران وانا الربو ولي بشرطي وحاوسي دران إن العقل لقا قادو كوادا كان يا من نيروبي كتشيرو لو كنوا شلين بلغو ديوان قلنا يا لو كن يشان بقول صدح كون هذا صدن دور أما $20 بلغا قادي ربوي waxay ka dhigan tahay lacag muqrid badada taadiga yimide custom ka noqonaya cudwa noqonaya kambaniga muqtarid buu noqonaya waaga dambana waxa lagu leeyahay waxaan aad shaqaysato dad bad keentay waxa la isku ka daraya kistaadi iyo wax kale oo keentay marka waa qardi jarra manfaca labada shardi wixii kambaniga ka badbaada dibkana aan qabin waa laga shaqeyn karaa laana waxa weeye amal ba ribi xamaal la waa lagu helaa amal la waa lagu helaa waad shaqeysay custom baad keentay macaamil baad keentay dad baad soo jiitay in wax lagu sii waa loo ogol yahay sida dalaalka oo kale laakiin waa inaan laga qaadaynin marka lagu diiwaan geliyo xubin laga dhigayo aan wax laga qaadaynin shardina uu sanay inaad ka iibsato company-ga aad wax ka iibsato labada hadii laga badbaado wixii kale waxay la wadaagayaan mucaamalada guud ee fiqiga la yaqaano wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤال اللحاد شيخنا سائل كان وحو ليهي وحا اي فرن قرون كبدا عقتها لغو عيارو ولو يقانو صلح وحا كو عيارا رقبس وحا انكي جارا ساعد قوان وقولة مركا كو عياري سان كقاضو لعق $10 يوحي لمدك وكراء مركا لعقتها ايقاسو قليسا قرون كان نوعاسا حلال مية ايتاي بسم الله baaritaanka iyo mas'alada ku jirta kubadda cagta iyo wixii la halmaaliyo kolayga iyo hadda ku sii mashquuli maayo su'aasha xadidan jawaabteedu baan hadda abaaraya hadii alla yiraahdo marka waxaan leenahay hadii uu ka badbaado garoonkaadu xadgudub diinad ka badbaado oo meel la isku laayo oo la isku qaawiyo oo awraadka lagu muujiyo lagu xadgudba aysan ahayn oo kontroolayso salaadihiina aan la dayacaynin way ku banaantahay inaad ka shaqaysato way ku banaantahay salaadihii xilliga salaadaha la gaaro waa inaad meesha xirayso oo dadka salaadaada amrayso
وسبب نقولين إن صلاة لقطه إلى حقش لقطونته. ثانيا حتجذب حقوق الناس يديك ودي عرض ودي لفودنا وسنكر الماشي يعور القاوي حتجذب لبضع ضدك إلى لسوي حتى شقيسته قيل بالله ليا إن يكون بنانته هاي خلافات كليات كرة القدم كجريها ولا هذا إيوه ما الكدم وحي كانوا دون تاتا قصي مشغول معنا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شاة الضباب سائل كان شيخ حولي هاي waxaan rabay inaan sakaatul maal ku sadaqaysto masjid la dayactirayo oo ku yaala wadamadan reer galbeedka ama Yurub waxaan sheekha ka maqlay inay bannaan tahay in masaajidada wadamada gaalada ku yaalay lagu bixiyo sakaatul maalka laakiin masaajidada ku yaala wadamadan gaalada badankoodu waxay taageeraan in muslimiinta ay u codeeyaan baarlamaanka marka sheekh ma ku bixin karaa sakaatul maalkayga masjidkaas la dayactirayo laguna taageerayo doorashooyinka baarlamaanka in la galo. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد. وسؤال جواب دير وباهن لكن ما حدد ذو حاوية هدي أنت بحين يساعد أكتاي هنا قاضني وداديه ولولين يي برلمانات كي طواغيت إن لا تاجرية الديمقراطية ده كما بحين كرتي هدي لكن بيتك إله اللي قد سيو هنتيدو أي بيتك جليسو بيتك أسوق طاغوتنا معها مشركنا معها برلماننا معها دمبنا سو موسى قلنا وبيت إلهي وأصل كيس الله دسي إله اللي هو عابده وإله اللي هو وحيده والدين اللي هو برته والمسلمين تو كسر هيدان وإلهي سبحانه وتعالى كوين إياه مركا هنتيدو هدي ملاحظة بدن يعني مسجد كي جليسو عدي دون بها joogto waad ku bixin kartaa ama wadaad wanaagsan ha joogo mid u ololay hawshaas sheegtay ha joogo waad ku bixin kartaa qasadkaas asaga ah waad ku dhiibi kartaa hadii laakiin dareen aad qabto inay ayagu isticmaalayaan iyo hawlahoodii kale horaan bal in lagu bixiyo nimanka hanti ma banaanayn intaan xukunkoodaba loo gudbin hanti aan masjidkii galayn oo ruux ku tasarufayo oo meel kale aadayso iyadoon la eegin ba axadka jooga horaanba ma banaanayn haddii marka cudurka uu sii qabay oo ku darsaday aad sheegtana kaba daran laakiin haddii hantidu iyo zakadu iyo xoolahaadii beydka ilaahay la gelinayo nin xun baa ha joogee waad ku bixin kartaa wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء. سؤال تطبعات سائل كان الشيخ حولي هاي هدي إمامك كتجيني هاي وفاسق هاي أمام doorashooyinka iyo dimuqraadiyada uu ololeeyay ma ka goosan kartaa salaada. بسم الله لبا قيبود بي سؤال ka kooban tahay qaybta koobaad ee ku saabsan imaamku hadduu faasiq yahay ma ku daba tukan karaa waa masalatu ijmaacin الصلاة خلف الفاسق أنها لا تجب لبا la isku khaldaa faasiq in lagu daba tukado waajib ma aha وروح مسلم يكون واجبي ثم أي جرته أن يصلي خلف فاسق مركتاوى مسألة إجماع عدم وجوب الصلاة خلف الإمام الفاسق ومسألة مقطوعة أيضا إجماع باكو يمد وحلقا النقاش هو جوازك ما بنانت هاي إن كنت بتكنا لقا النقاش مركا هداد هليس إمام عدلي وأن فاسق هين صوابك وحاوية فاسق مدبتون كرتي هذا الإمام عدل هذا هينو فاسقاء دونك قبصدينا أنت تقول قاعد تكون رسول الله هيد اسكلتكو فاسقاء سقا جماعة يودا جركا كقيمة بدن قيب طلبات يكون صابسا midka maxay ahaydnin asagu u ororaya doorashada iyo maxay dimuqraadiyada ma ahayd su'aasha qaybta labaad dimuqraadiyada iyo nin doorasho u oleeya doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyada Almaaniga casrigeena asoo kaas lagu madawkan karo inaad ku daba tukato ma banaano maxay ninka asaga islaamnimadiisa ay fari ku jirtaa go'aankan kale ina wad ogtiin baan filahayaa marka ka asagu مسلم معها midka asaga ay u ololeeyo dimuqraadiyada iyo nidaamka Almaaniga asagoo fahansan xaqiiqada iyo waaqica ka muslim ma ah marka salaad kuma daba ku tukan kartid ama faasiqu warkiisa waa ku soo hormariyay wallahu a'lam.
جزاك الله خير الجزاء. سؤال سقالات وحيلا يا إسرائيل كان شيخنا آريada ka yimaata gabdhaha xubinka tarankooda xilligay gabadhu umusha ka baxdo haddii ay ka timaado aariyadaasi iyadoo salaad ku jirta ay salaadu ma ka buraysaa. بسم الله. هو مسألة خلافية بين الفقهاء مالكية وحنفية. هودا أما نفتا كإيمان يسحبين كتران كائن يسوي ويشد الجبين بقوان وحن ويشد الجبين صلاة ما تجبين يمرك أيضا ما دام شرط ظهارة يهوز جليس. حنابلة شافعية وحيو بديهين إن أي جبين يسو والنفط حق ضم كإيمان يسيو مد حق تران كإيمان يسحبين كتران كيسكم متكردين. حنفية مالكية رأي وضعنا إلى الصحن. حنفية مالكية رأي إلى الصحن محيلي والريح ناف غير معتادة وحي مركة غالبة أما معروف أما معتادة هبان حكمك لغو حداه شيء نادر كان حكمك لما آذو. ثانيا نفط أيضا نفط علوشة كإيمان يسي وحجبين يسو كلامه هو داعي لمتاي داعي هيقاكو قبطي لمتاي علمك حديث كطبك أنا وحتاغيري رأيك حنفية مالكية ده وحيليهين وهو كإيمان يسر حمك السكدي وحبن كان قديه سكا إيمان يسر شغل كلهين علول إيو مخارجتي أي نجاسات كإيمان عن شغل كلهين إيه صاريبا نجيدنا مركا على يتحال روح مسلم كسلاد يسو إيه صحيح بي أهيد ويسيد يسونا صحيحنا والله بي سبب كان هذا النفط كتمت فرجنا ومز خلاف باكوتشيرا الأصل مركا وحاول بقاء ما كان على ما كان أما استصحاب حال الإجماع وحلو رجل ونهوز جينا شكي بانا كجرا إنه هي حدث باشك كجرا أحداثنا قياس لكم الصقو وحب أنت المسألة توقفية وهي سنة النجازات وكله مركا رأيك حنفية مالكية ده أي إلى حق بدن قبل راس مركا نفط فرجة كإيمان يسوي سمة جبيسو نجاسنا معها صلاة يويسنا من الجبين ميسو والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا طبناد شيخ سائل كان وحولي هاي وحن هاي أرض برتا جامعة وحن برتا كلية القانون والشريعة كلية الشريعة والقانون وحن قانون الجنائي كو قادناي قفك زانيغا حبسي وحنا هين إن أن لغو عقابي كرينين سيدو كلا قانون الدستوري وحن كو قادناي in dumarku ay ka qayb qaadan karaan siyaasadda qaybaheeda kala duwan oo dhan diintu marka maxay ka qabtaa isku darka xeerarka caalamiga iyo diinta islaamka. bismillah. waa su'aal xanuun badan aadna waxaan u dhibsanayaa in ruux muslima weydiiyaba oo yidhaahdo diinta maxay ka qabtaa hawsha ayada noocaasa oo u baahdo inuu axad kala weydiiyo waa arrin xanuun badan weeye oo ku tusaysa jahliga iyo aqoon darrada ka jirta bulshada dhexdeeda masaa'ilka marka la maray. diintu waxay ka qabtaa waa adoo isku daray nijaase iyo shay daahir ah waa adoo bakti iyo birsol isu keenay bakti iyo birsol waa adoo islaan iyo gaalnimo meel iskugu keenay diin islaan wax lala kulmin karo ama lagu dari kara midna ma jiraan. howlaha uu sheegay saa'ilku kulligood waa gaalnimo diinka lagaga baxaayo waa tabdiil liaxkaamillah waa tactiil lishariica waa baksi iyo bahdil iyo quursi kitaabka ilaahay diinkiisii waa bilid iyo bomboonin la bombooninayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu cambaareeyey uu duray gaalnimo iyo qurankeedii wixii la halmaala ahaa. ما بنانو أحكامت إلهي إلا بدله ما بنانو إنك قيب قادته ما بنانو إلا بمبوني أما الله قيل بحيو إنت أصو الصوابة نينك لغاه للدين كإسلام كبنانكو كي هاي أرضي إنت لها الماشبه ولها لغوان توبو أحد كل واركنها لغوانيو روحون هاوغادو هاوشا أيضا هاتو كأقبحو أصونا قال لما كأقبحيسا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا كوبي طبناد شيخ سائل كان وحولي هاي وحان جوغا ودمada أفريكا كميدا وحان كشقيا صرف كاللعقها marka dhibka meesha jiray waxa weeyaan sheekhana isku qiimo laguma qabto lacagaha lacagta dollarka tusaale ahaan dollarka yaryarka ah
halka doolar, shanta doolar, tobanka doolar iyo 20 doolar intaa yaryar waxaa lagu qabtaa qiimo ka hooseeya 100 doolar. sababtuna waxa weeyaan dadku ma qaataan. marka sheekh waxaan weydiin rabaa ribo miyaa lacagtaasi? بسم الله وسؤال ور بدن ويه mahadhadeedu waxa weeye dollar hadii dollar lagu sarifayo lama kala badin karo. 96 iyo midkan waa jajab iyo 20 dollar iyo 10 iyo 5 iyo kana waa 100 isku dhagan iyo lama ogola mid ayada ribo way. mar haday lacagtu isku mid tahay, isku wadan tahay, isku dawlad tahay, qadaadiicdeeda mideeda yar iyo mideeda weynba lama kala badin karo. taasi waa mas'alo loo yahay. qaybta ku saabsan asaga dollarka laftirkiisi markii lacagta lagu sarifayo boqolkii marka lacag ku sarifaysa in qiimo go'an laga siiyo matala anagu 10,200 way Kenya money. laakiin markaan konton wato ama 20 wato ama 10 dollar ama 5 dollar aan wato kale matalan hadii la qiimihii boqolka waa laga soka dhigaya ama waa laga badinaya iyadoo lacag lagu sarifay dib malaha mid ayada wadaad isku dhibaa jira laakiin dib malaha mar hadii lacag kale ay tahay wax lagu sarifayo dadkuna ay sheegeen dhibaato jirto lacagtan yararka aad uma socoto midka 96 ko kale dib kala lagu sheega 2003 gaasna waxay ka sheegaan hawlo badan baa iska jira lacagaha isku jinsiga isku midka isku dawladda sayiduna ma noqoto in la kala badiyo riba ku jirta. ama hadii Kenya money iyo riyaal iyo dirham iyo waxba kala lagu sarifayo marka ayada wax dhiba malaha wallahu a'lam. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا لبي طبناد سائل كان الشيخ وحوليه هاي أولياء المقتول وكوي مثلا الله شرطيا إن أيسكو وافقان إن قصاص قاتان أما أيدي قاتان. بسم الله. أولياء المقتول لبا إطلاق بالله إطلاقا إطلاقنا مثل اللغوي منه ومثل شرعي مثل اللغوي وجعلك أهلك نك للدليل قتيلك ودن حسبديسي قرابديسي أهلكيسي ودن يا أولياء النقونية وإن لم يكونوا ورثة يزن نقونين با. أما مثل فقه شرعي أولياء المقتول في الفقه حق الشرعيات كوحاوي مكلا مرية دحل مرية قصاص لمرية وأحد كروح الذي دحي لها ديديسي مكتيس أحد كدحي لها حوله وتكتغن دحي لها با يا أولياء المقتولة كواسا أولياء أيغاسا مركا حقوا لنا قصاصتان يا إني دياقاتان عفيان قصاص توحى الله شرطيا إن اسكو وافقا ورصدي dhiiggiisa lahayd dhaxalkiisa lahayd magtiisa lahayd oo dhan waa inay isku waafaqaan in la qisaasto. 10 ruux haday waraso u ahaayeen hal ruux kamid haduu yaanu qisaas mar rabay waxaan rabaa diyo ama waaban cafiyayba qisaasta way dhacaysaa bil ittifaaq. qisaasta way dhacaysaa hadii ay qisaas dhacday marka diyo baa waajibayso kuwa kala diyo ay qaadanayaan wali xaqooda ku aadanaba la siinaya. kii cafiya soo meesha waa ka baxaya cafisku marka wuxuu keenayaa iyo diyo in loo wareego waxay keenaysaa qisaastu inay dhacdo. wixii kalena khiyaar baa ka furan ninkan wixii cafiin magtiisu leeyahay ninka cafina meesha waa ka baxaya. marka awliyaa al-maqtuul waa warasada qisaastana waxa loo shardiyaa in wasoo dhan ba isku waafaqaan haday marka ay yihiin baaliqiin waaweyn oo qaangaad ah ayaa shardi haday yar yihiin برنا أي واويه برنا يريهين ومسألة خلافية بين الفقهاء وإذا دبنا السلف كانوا حيقبان أنت يركعه ولا قد تجاه كوه إن بالقوا مية أو قصاص تفولين كرا آثارية حديث بان بين ودلي شدان أنك الشافعين وذكتهين إلى ورصدا أيقان قاعده ويوحي عافيان أما أي قصاص أو قلادان لما أوفنكروا دبا الأرض ولا تأجيلا يوان قبنا وإسكا مسألة خلافية المهم ورصدا وين سكر راعده قصاصته أولياء المقتولة وحاويات كده حلقة إسكالها والله أعلم. جزاك الله خير. وإياكم. سؤاشا صديقية طبناد الشيخ سائل كان وحوليه يسونا مركب قرآن كالله آخرين أيوه إن للتجويدية مواجبة مسجرت أدلة السنة ساي هبكي أي صحابة القرآن كأي واخرين جرين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريان ذنبي ور سو كردي وركا أساقا أسائلك سو قري ورا أنصر لهين ومعنى اللهين وقيمة لهين قرآنك حروفتي سي قراءتك سيد الله قاطي أديهيسا تجويدي كان الله قاطي وركمد والبنا أصل أدلو ليهي صحابة لغا قاطي قرآنك النبي كسو قاطي أيا قابك وآخري جرتي taabiciintuna qaabkaasay uga qaateen quraadina sidaasay uga qaateen qaybtoodii taabiciinta ahaa iyo qaybtooda atbaacu taabiciin ay qodobkiisa dambeeyaba waa ariiq salaf waa ariiq nabi xuruufta iyo qiraa'aadka iyo adaha tajwiidiga kulli waa shay waxa weeye tawqiifi ah oo laga qaatay weeye lagu qaatay biatharin wa mustanadin sharciyin in la kala qaado tajwiidka quraanka iyo qiraa'ada iyo xuruuftiisa la kala qaado waa shay dambe wadaan qoli aan aqoon badan diinka u lahayn ninkii u baahnaa ka akhriyo kutubta asalka lagu talagalay ee fannigan laga qoray marka hal muraajaceeyo waa helaya adilla ay leedahay nusuus bay leedahay saxiixaanka ku jirta qaab uu nabigu u akhriyo jiray quraanka marka hawl sahlan ma aha bidcada ay la wareegayaan caamada qaarkood iska ilaaliya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam jazakallahu khayr aljazaa su-aasha afari tobnaad wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani waxaan leeyahay 3 naanays iyo magacayga saxda ah waxaan guursaday 4 xaas ama aan qaba 4 xaas mid walba naanaysaa kamidaba ii taqaanaa marka ma shardi baa sheekhana inaan haweeney kasta ama gabar kasta aan u sheego magacayga saxda ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين waxaad moodaa waa ninka artoola oo godgod badan ninka asaga waxa golo dhici karta dadka Yurub iyo galbeedka duruuf badan bay mareen ayadna inay jirtaan waa dhici karta shardi ma aha xaasku iyo cidda wax kugu mehernaysay iyo shuhuuda meherkaba waxa shardi inay yaqaanaan adiga muuqaalkaada iyo daatadaada shardi ah in magacaada saxda ay yaqaanaan shardi ma wadaada adkeeyo dhoojiya oo wax walba adkeeya laakiin muhiimadu waxa weeye in markay marxaatu wax kugu meherna uu ka marxaati kacayo marag meherkaada iyo ninka waliga ah iyo inta shuhuuda meesha joogtaba daatadaada iyo magac lagu yaqaan ay kugu garanayaan magaca haduu doono kun yahan noqdo naanays han noqdo kii saxda ah ee lagu walqalay han noqdo daatada iyo ismi lagu yaqaano waa in la helo haweenaydu marka haday ragga ka taqaano ay ku soocanayso ku fahansan tahay oo dadka ay ka taqaano magac sumadana ay ku taqaano inta waa ku filan yahay laakiin waxa wanaagsan waxba aad kala qarinino haweenay walba magacaada dhabtaad u sheegto oo hadhow saan inkiraad iyo dafiraad midna aysan u imanin taas aad bay u wanaagsan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤاشا شنية طبناد سائل كان يقول يا شيخنا سيدي لو جمعينيا قال إن عداود لو موتشيو يا إن لو دقم وناكسن سي أي إسلامان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد سؤال شاسي وسؤال اسكا كوبان حقنا قد بلاران ما كلا سو كوبو jawaabteedu aanu soo koobna waxa weeye laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah inaad tiraado oo gaaladu sida ay kugu og yihiin laftirkeeda cadaawad muujin ah gaalkii ilaahay ku kufriyay ee rasuulka dafiray hortiisa inaad ka tiraado oo ku og yahay inaad aaminsantahay ilaahay inuu keligii yahay keligii cibaada mudan yahay wixii ka sokoyo dhanna baatil iyo bakhti uu yahay nabi muhammad rasuul xaq yahay inaad aaminsantahay inuu og yahay ood muujisato laftirkeeda waxay tahay at-tasriixu bil cadaawati al kaafiriin iyada idhaaru al-cadaawa qodobka labaad in adan baatilkoodi iyo kufrigoodi u qeyl bixinin xaqana adan taageerin na laftirkeedu waa meel cadaawa qodobka saddexaad inaad kufrigoodi iyo baatilkoodi radinayso oo aad muujisanayso radigiisi laftirkiisu waa cadaawad la muujiyo way inta markaynu ka soo tagno qodobka muhiimsan waxa weeye inaadan gaal muslim uga helinna waa cadaawadood muujisatay oo tawalliga iyo muwaalaadka iska ilaalinaysa in muslimiin iyo gaalo haddaad doonto muslimiinta isku dhacsanaatiin ururo kale ha noqdeen kuwaad ka soo horjeedo reer hebel oo
saqiir cullow idinka dhexeeyay iyo umradoox ha noqdeen waa inaadan oga helin muslim ruux sheeganaya oo muslim ah diinka aan ka bixin hadduu doono mubtadiba ha noqdee waa inaadan gaal oga helin haddaad gaal oga heliso diinkaad ka baxaysaa marka shahaateynkii wixii la halmalo u muujisato gaalnimadooda oon u qiil bixinin xaqoodan la waabanin adoon weliya gacal ka dhiganin qodob afraad oo raaca xaggana ayaga aan weynaynin tacdiimkooda iyo buunbuunintooda iyo hawshaasi waxay keenaysaa in diinka aad ka baxdo xanafiya waxay dhaheen waman cadama kaafiran aw bajalahu kafar ninkii gaal weyneeya ama tabjiiriye boos iyo yasa iyo hawlo kasii daaya iyadoon daruura aysan jirin waxay dhaheen waa kafar waa hawl adag marka hawlaha iska ilaali wixii intaa ka soo hadhay waxaa weeye in laisku khaldo ma aha ruuxa in loo ixsaan fale iyo in la weyneeyo ama xaqi meel lagaga dhaco ama gaalnimada la taagaro ama loo qeyl bixiyo way kala duwan yihiin wuxuu qur-aanku ka hadlay ilahay idinkama reebin baa la yidhi inaad u ixsaan fashaan laa yanhaakum allahu can alladina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibbu lmuqsitiin shaafici fi lum wuxuu yidhi ilahay idinkama reebin can mabarati haulaa wainamaa nahaakum can muwaalaati watawali haulaa walaysa albiru walixsaanu مما نهي عنه من الموالاة والنص الشافعي أو معناه في الأم وفي الرسالة إنه من جعلها في عفوا في أحكام القرآن مركا لبل اسكو مخلدو إن قال كو إحسان فشو أما عاويسو انتو حلقة الله يا آدم حسطو مساكين تو أهل عهد جودا كوا بل إسكالي ذمة قال كحربي قال لقى ما الله قال كحربك يمدك معاهدك يمدك ذمة كل وين لقى ما ينكروا موالاة الكافرين وتوليهم وكفر مطلق ما يشدون ما كل يماد وحلقها الله يوا من يحسن إليه ويبر ومن لا يحسن إليه ويبر أما العدل أصبوا في جميع الكافرين ظالم كان ظلم لما أقوله أصبوا قالوا الدليس حتى إن عدالتك كتكت لما أقوله مركع عدل وأصبوا في كل باب وحلقها الله يوا برق إحسانك بري إحسان إيو معاملة وناكسن كين يسروح الدين كأنه صوقله والله إحسان فلا وحاوي وحاسكالي دتك أهل دماها أما هذا وجد معاملة وناكسن وديسلانك محاسن تيسي كرم كيسي أخلاق تيسي بلعي سناد موجس وشيء لو باهي وتنبغ استعماله محايا قال كأن دليني يا مركان سوق وانا وحاونا سن الاسكسي دايو لقوضي بل ومن الدين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا أصير كوا معي وكافر حربي كافر حربي ونقون كرا مركا إحسانك إيا برقا إيو أخلاق الإسلام إلا موجيو إيو إن قال لما لك قعلكتو أولا بونبوني أولا قيل بحي ويكلا دوانيهين لبابا إصلاحين ويي من نوال وقالوا با من نوال وناك دينك واحتري إلهي نور لك عقل نقون إيو والله سبحانه وتعالى أعلم جزاك الله خير الجزاء سؤاشا لعية طبناد سؤالها المرة ما هي ميات سؤالك ما دمان يعني سائل كان الشيخ عليا هاي صح ميا عرورة مسلمين تا عرورة قالوا إنيين شغالها أهل الجنة سعرورة قالوا أدي قاران حد التمييز أما عقلي يشان حقنا قال نمكو رالي نقدان إن الحسابين بسم الله سؤال وباهن بحث دير وباهن لكن ما كلا صوكوبه مسألة لو يقان أطفال المشركين المذاهب تبدأ كتير بهوست جيسا سيد الصواب كان وحاوي مسألة ومسألة إجماع منه ومحل خلاف خلاصة عروض المسلمين هو أهل الجنة أهل الجنة وي مركا مدول بنا علمه والدك يا أهلك بأخدمين يعني أهل الجنة دون وما خدمين iyagoo kuwaas inay ahlu janno yihiin axmed iyo keyrkiiba ijmaac soo guuriya khilaafna kuma jiro khilaafka la soo guuriyana waa khilaafan muctabar ahayn cinda ahlicilm oo ku dhisan xog badan inuusan helin wadaadka nusuus iyo sunnana uu khilaafay khilaafka ku salaysan marka cadamu lcilmi bidaliil kadib haddii daliilkii la ogaado lama ictibaarin sida raajixa saa darteed baa u suura gashay jamaaca min almutaakhiriin oo axmed kamid yahay iyo sandrawiya iyo inay ijmac guuriyaan ayagoo ogaa khilaafkii hore saabiqa ee jiray ee ku dhisnaa cadamu lcilmi iyo cadamu buluuqi daliil ku dhisnaa
أما تكسب سن أطفال المشركين مذاهب بدن بأكو جلسة راجحانة أطفال المشركين وين أهل الجنيين من أهل الجنيين إن خدم يأديك أهل الجنة لقد جماعة من السلف باقبة وبعض الصحابة كمدي أنس كمدي هاي يتابعين كليا ولا دكلبا قيبت كسب سن هذي قال لما كنا عان المها سبيقة قالك مميز كولي قان قارين سبيقة مميز قال الله قولكم إيه المها إن مؤمن مسلم كا يمدك كافر كي أبيه راعي الدين كبا انتو سنقان قارين لكن وحكى سوعي عقلي ويشي تمييز هذو قال لما كنا إنه قالوا بالراجح والمذهب جمهور العلماء وي لكن إلى وقان قال لما ادري كرو والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخنا جزاك الله خير. سؤال سيدي طبناد سائل كان وحولي سؤال طبناد عفوا سائل كان وحولي يا شيخ خويدي بعد ما تي حول أينا كتكتي عرور بدن نواي كتكتي هو أن كان حول أي كتكتينا ما بدنا أنا وحنا هاي عرددي حولها نوانو بهنا هي ميان قادن كريا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سؤال جوابته وحاوي حوله ودحل حوله دحل هو أما عرض النقو أما قرضن بيس النقو أما المدح النقو وحاوي وحي كتكتي هيا راضها بدناادو دحل بو نقونيا mana qaadan kartid iyadoon la dhaxlaantida ayada ama warasada kale ku dhalatay aysan ku cafiyin aabaha walaalaha cid ku dhaxlaydo iyada dhaxalkeeda kula qaadan laha oo ku cafiyin ma qaadan kartid hadii aan la dhaxlin ama aysan ku cafiyin xaraam bay ka yihiin wallahu a'lam. سؤال سيدي طبناد سائل كان الشيخ وحولي يسقنا وما هي حكمك أضياش حيرك وحكو دقا محاسي نوغا آدن وحيابها أيدية ذا كشيغان بعمدوغا ملبحين كراسي بعمدوغا مفاهمين يعني وحوكو سلسنين بانو قاتين بسم الله سوق مدوغ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أضي نقمتك لو يقان حيرك يا حير يا قانون أن قرين ويحفظين ودوشة كهيا وحكم مامورا وحلمديهم برلمانك كراستي حفيسة وين فريستي دولتها مامورا لحكمي وحول حي متجرو متكنا متقد دستور قرآن أو كتاب قراي خلاف صنبو وحكم مامورا قيبنا أسقو الدجية midkana mid uu xifdsan yahay oo la kala guuriyo oo ka socday buu xukum maamulaa midna waa maxfuud midna waa mudawan mastur ah farqi kale u dhaxeeya ma uu jiro marka waa isku xugum isku meel bay marayaan qaybta ku saabsan magta bacmadu waxaan u maleynayaa bariyahan dambe waxa weeye magba lacag lagu soo qaaday lacag laga dhigayaa bacmadu waa lagu soo ridayaa markaas adoon tirsanin انت هدي وكا وحي ان اودنا ان هلي وحي كان هذا وان كاغا فاتح مرنا ولا سيد هذا انه سدا كودا laga yaaba sida haday tahay magta asalkeedu dawaaniga soo maray waxa iskale dadkii laga dilay ahadkii muslimka laga dilay ba iskale dadkaasi marka hadii ayagu ay sulxi u galaadaan oo sulxi aan mulzam ahay sulxiga mulzamka qaanuun bisu bedelaya kufri buu noqonaya وإن خيار وكفرين هاي مقطع بقول يلباتن سجاشن كونتن لحدن وحي كوي أيو كوقن عام دتكي ليجلها أن لقصب حق النحير هروج جرو ريه بالآن لإلزامين ويبنان تاي أحاديث بانا كتمت كان ولا قيب قادن كرا هدول لك هي كان ليس إلزامين وريه بالوحي رقا وحاو حيرة أفرتن wixii dumar waxa uu xeera 24 neef noqol yaab la sheegay inay gaarsiiyeen midka asaga waa qaanuun lagama qayb qaadan karo waa diin la'aan hadii aad wax ka qaban kartana ka qabo oo wax ka bedel hadii kale ka qayb qaadanin allahumma inaad ka baqayso dhibaato weyn oo burbur keento dhiig badan ku daata inay meeshii ka timaado adoo markaa muslimiinta kale isbaabeynay inaad dhiigooda badbaadiso
marka ayada waad ka qayb qaadan kartaa qaaraanka yarka iyo magta ayada laakiin fi xaddi daatihi inuu diin la-aantaa yahay waa inaad ogaato markaad ka qayb qaadanna dhiig muslim oo soo socda badbaadi mooyeene ogama qayb qaadan kartid taageero hawshan ah laanna waa lagu gaaloobayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam. saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh waa su-aasha 19aade waxaan ahay gabar dhalinyaro ah oo dimuquraadiyada iyo baarlamaaniyiinta kasoo horjeeda gaalnimona u aragta sheekh dhibaato miyay igu tahay nin u arka normal ama agtiisa aysan wax dhiba ka lahayn in aan guursado mase igu xidhmaanin noocaasi? waa su-aal dhib badan weeye. go-aankeeda waxaa weye ninka ha guursanni, haddaad guursatana meherkaada ma asixin, hadduu ku qabana iskaga carar, hadda iskaga carar, maxaa yeelay meher kuu qaban maayo. ninka waxaa aaminsanaya garanaya aduguna aad ka aaminsata inuu gaalnimo ku jiro, si haddii uu sayf ugu noqon aduguna aad arad ugu noqon, waa arrin la yaab leh. hawshaasi ka fogow, ninka kuma geyo, gayaankaada ma aha, kuwii ku geyi jiray raadso, laakiin ka asaga iskaga fogow. wallahu subxaanahu watacaala aclam. jazaak allah khayr jazaa. su-aasha inoogu dambeysa oo ah su-aasha 20aad halkadeena maanta wuxuu leeyahay sheekh saa-ilkani, sheekh haddii aniga oo weyse qaba aan taabto xubinkayga taranka aniga oon wax dan a ka lahayn weysada ma iga jabaysaa? بسم الله aada uma fahmin su-aasha. dadan wax dana ka lahayn maxaad u taabatay? hase ahaatee waxaa weeye gacantu hadday kaaga dhacday adoo sarwaalka iska furaya ama macawisti xidhanaya ama uun hawl kale u socday gacantu kaaga dhacday, sida raajixa weysadu ma jabin. haddii laakiin aada qasad u taabato dareen bay aadan ka lahaanin iyo damaaci oo qasad u taabato weysadu way kaa jabaysaa. almasu biqasdin waa naaqid lwuduu, المص بلا قصدنا وغير ناقض للوضوء سيد صوابك والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء. intaas ayuu barnaamijkeeni inoogu egyahay maanta. sidaa iyo waxaan ugu dhaafaynaa salaamu ullahi calaykum iyo kulanti dambe. salaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.